بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي واسعيد محمد محمود أهنا قدوميها أرضية دلك اليمن الصوماليات. دكتنا كلية مانجمنتية أما سلو يغني بزنس أدمنستريشن سنة الرابعة. رئيس البرلمان كصوماليا waxaan u diray su'aashaas oo ah ardayda Soomaaliyeed waxay joogtaa gobolada wadamada kala duwan ee caalamka dhammaan waxaa jirta arday badan oo ka soo baxday jaamacadaha kuwa dhiganaya kuwa hadda loo diray maxaa loo hayaa kuwa soo dhameeyay kuwa hadda u baahan in loo dirana maxaa loo diyaarshay magacaygu waa Muuse Axmed Xasan Guutaale waxaan dhigtaa أكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية تخصصكيga waxa waaye waa إدارة المصارف ama إدارة البنوك qofka soo yaqaano waxaan u soo jeedinaa madaxda dawladeena waxaan hadda yeelanay dawlad rasmi ah waxaan leenahay dal burbursan oo dib loo dhisin muddo ka badan 20 sano nasiib darro aniga ay dadka ila faca ma soo gaarin dawladii hore tan cusub hadda jirtana dibadda ay ugu maqan yihiin oo wali kama faa'iideysan arinta xigta waxay tahay arday badan oo waxa jirta dibadda loo diro oo wax ka soo barata laakiin wali ma aan arkin takhasusaadka qaar ee dalka intifaac u leh sida kulliyada shurta kulliyada ciidamada booliska kale kulliyadaha duulimaadka kulliyadihii arday dalka dib u anfici lahaa in maaragtay arday loo soo diro oo ay wax ka bartaan maxaa dhacay oo maaragtay ardayda Soomaaliyeed loogu soo diri laayay takhasusaadka anfacaya maxaase loo dacmi laayay itixaadaadka ama ummadda Soomaaliyeed dibadda ku nool yani ardayda nidaamyada ardayda ee dibadda ku nool بسم الله الرحمن الرحيم مقعي عبد الولي محمد حسن جامعة الذمار يونيفرسيتي waxaan ka soo qalan jibay 2011 و 2012 لو كنت لو كنت marka hore salaamaha dhamaan shacabweynaha Soomaaliya gaar ahaan dawladda Soomaaliyeed madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka dhamaan waxa Ilaahay ugu rajaynayaa dawladdan cusub inay noqoto dawlad mar dhasho oo si tabaqaato meelaha dawladii hore uga tageen su'aasha kale aan weydiinayo guddoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Uthman Jawaar waxay tahay dhalinyarada Soomaalida gaar ahaan ragga soo qalan jibay jaamacadaha ka yimid maxaad u haysaan oo maxaad dawladdiina